shaqadaadu waxay leedahay dhinac ijtimaaci ah waxaad xidhiir la leedahay madaxdaada shaqaalahaaga iyo asaaga intaba waxaana habboon in xidhiirkaagu saddexda kooxood uu isku miisaaman yahay ood mid walba sida ugu habboon ula xidhiirtid waana xidhiir gulco badan oo wejiyo kala duwan leh waxaana loo tiriyaa madax badan oo ku fashilmay hogaamintu inay sabab u ahayd fashilkooda gafaf ay sameeyeen xagga xidhiirka bulshada kuna talagal inaad la dhaqmaysid dad rag iyo haweenba leh waxaana ka mid ah qaar hadal waqtiga kaaga luminaya xafiiska ama dibadda waxaa la arkaa inay cidhiidhi ku geliyaan ama kugu qasbaan inaad ka qaadid tallaabo aadan jeclayn markaa waxaa loo baahan yahay baraarugsanaan saddexda xidhiidh ee shaqada ku xidhaya waxay saameynayaan noloshaada ijtimaaciga ah waanay adag tahay sidaad u kala moosi lahayd xidhiidhka ijtimaaciga ah ee idiin dhexeeya adiga iyo madaxdaada iyo kuwa kula siman way kala duwan yihiin hogaamiyaha fariidka ah waa inuu kala garto xidhiidhka iskhilaafsan mid kastana uu kula dhaqmo sida ku habboon xidhiidhka kugu xidhaya madaxdaadu waa xidhiidh kala sarreyn ah waxaa laga yaabaa in madaxda qaarkood aanay u aaba yeelin kala sarreynta iyagoo ula dhaqma shaqaalahooda si jaalanimo ama walaalnimo ah oon is-xurmayn lahayn haddii madaxdaadu noocaa yihiin u dhug laho inaad tixgelisid xidhiidhka madaxnimada marka ay madax kale la joogaan xidhiidhka jaalayaashada kula siman wuxuu ku dhisan yahay tartan maldahan maxaa yeelay mid kastaa wuxuu u hanqal taagayaa dallacaad iyo horumar uu ku dhaafo saaxiibadii shaqaalahaagu way ku xurmaynayaan laakiin haddii aad u tegtid heerkooda oo aad dhex geshid il xurmo iyo tixgelin kugu fiirin maayaan waxaanay ogaan doonaan ceebahaaga iyo daldalooladaada marka waxaa loo baahan yahay inay ka muuqato xidhiidh kala sarreyn ah madaxda iyo dadka madaxda loo yahay taasina ma aha inaad ka fiican tahay laakiin waxaa jira derbi qarsoon oo u dhexeeya madaxda iyo shaqaalaha kaasoo ah derbiga mas-uuliyadda iyo xilka culayskiisa xidhiidhka ijtimaaciga ah ee kugu xidhaya saaxiibada wuu ka xorriyad badan yahay midka kugu xidhaya madaxdaada iyo kuwa aad madaxda u tahay maxaa yeelay waa dad aad siman tihiin oo aydaan waxba kale qarsanayn markaa ka xishoon maysid kana biqi maysid wixii aad qabtid si cad baad ugu sheeganaysaa waxaad jeceshahayna waad ka kacaysaa haddaba ogow in xidhiidhkaaga sidaas ah uu halis kuugu yahay sababtoo ah waa muraayad laga daawanayo xaqiiqada dhankaaga haddii aad ceebo leedahayna markiiba way muuqanaysaa sidaad og tahay dadka saaxiibada ahi waxay ku jiraan tartan dhexdooda ah waxaana imaan doonta maalin ay danahoodu iska hor imaan doonaan markaa ceebihii iyo falalkii aad ku kici jirtay ee kaas oo ifaxay maalmihii aan waxba la kala qarsanayn waxaa loogu shaqaysanayaa hub la isku reebo tartanka horukaca loogu jiro tusaale ahaan haddii la rabo in jago sare laguu dhiibo waxaa la arkaa in saaxiibkaa sheego ceebo kuu qarsoon oo kaa hor joogsanaya jagadaa sare markaa iska jir xidhiidhka xorta ah waxaa lagaa duubanayaa cajalad xidhiidhka ijtimaaciga ah ee shaqaalahaaga kugu xidhaya aad buu uga muhiimsan yahay intaad u malaynayso maxaa yeelay horukacooda ayaa kugu xidhan waxaa laga yaabaa in qaar shaqaalaha ka mid ihi xidhiidh gaar ah kula leeyihiin ama aad guriga ku marti qaadid markaa ninka hogaamiyaha ahi waa inuu ka digtoonaadaa in dadka xidhiidhka gaarka ah la leh ay ka faa'iidaystaan ama u muujiyaan shaqaalaha kale inay ku mateli karaan hogaamiyuhu waa inuu dhexdhexaad u yahay shaqaalihiisa waa inaanu kala soocin oo uu u simo fursadaha horukaca waa inuu caadil ahaado oo aanu u kala eexan una ogolaan shaqaalaha guriga ugu tegi karaa in aanay isku halayn wax gaar ahna aanu u ogolaan